waddan kasta dadka ku dhaqani waxay leeyihiin dhaqan u gaara kuwaas oo badanaa ay ku dheehan tahay isla markaasina uu ku qotomo dhaqanka ay haystaan diinta ay aaminsan yihiin ama ay haystaan waxa jira wadamo ay ku nool yihiin dad kala diina kala dhaqana kala habdhaqan isla markaasina laftarkoodu isla yaaba haddaba daawada waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa dhaqamo dhowra waa kuwa ugu la yaabka badan dhaqamada caalamka ka jira ee dhanka guurka daawada halkan waa jasiiradda Greenland waqooyiga dalka Mareykanka dadka ku nool baadiyaha jasiiradani waxay leeyihiin dhaqan mucjisa kaasoo ah ninku habeenka arooska uu sameeyo inuu haweeneyda u guursanayo timaha soo jiida ilaa uu geeyo guriga uu ku guursanayo iyadoo ay dadku goobjoog yihiin isla markaasina ay xaadir yihiin deegaanka Bicha ee dalka Hindiya waxa ka jira dhaqan ah inuu haweeneyda ay guursan karaan dhowr ilaa 5 iyo wixii ka badan kuwaasoo saaxiib ama walaalo ah waxaana dhaqankoodu dhigayaa inay haweeneyda guursan karaan dhowr rag marka ay ku heshiyaan iskuna waafaqaan xilliyada ay la kulmayaan ubadka ay dhashay ka ugu horeeya waxa loogu magac darayaa ragga ka weyn ka ku xigana waxa loogu magac darayaa ama lagu magacaabayaa ragga ka ku xiga wana dhaqan ku qotoma diinta ay aaminsan yihiin muranna kama imaado arrinkaasi daawada kuwan waa qabiil Soomaal lagu magacaabo oo ku nool dalka Itoobiya waxay caan ku yihiin inay dalooliyaan dibinta hoose ee afka ee qofka haweenka ah kadibna la geliyo caag markastoo ay kortana waxa la gelinayaa caagi ka weyn waxaana dhaqankoodu uu dhigayaa waana dhaqankooda guurkoodana waxa shuruudo inay haweeneyda ilkaha hoose maran tahay caagaasina dibinta ugu jiro dhanka meherkana gabadha ay ka dilaaca dibinta hoose weyn tahay ayaa ay ka lacag badan tahay daawada kuwan waa qabiil lagu magacaabo Chali oo dalka Suudaana qaraacistu waa dhaqan ay qabatimeen dadka xilliyadii hore sidaana ay u qaateen jiilalkii ka dambeeyay waxaana caado u ah inta la isku meherin wiilka iyo gabadha in wiilka la keeno fagaara ay ka soo xaadirayaan labada qoys waa qoyska inanka iyo qoyska inanta kadibna ay soo qaataan jeedal aabaha iyo hooyada dhalay gabadhu isla markaasina ay la dhacaan wiilka hadii uu muujiyo waxanuuna la siin maayo gabadhaasi Anison koonfurta dalka Mareykanka dadka ku dhaqankooda ayaa waxa uu yahay in ninku uu xado 7 habeen ka hor digaaga ugu badan ee uu ka heli karo deegaanka uu ku nool yahay kadibna uu kariyo isla markaasina uu cuno madaxa digaagaasi lugaha digaagaasina waxa uu ku hor daadinayaa ama waa ku kor daadinayaa sariirta ay seexanayso gabadha uu soo guursan doona dalka Scotland waxa kamid ah dhaqamada mucjisada ee ka jira in aroosada la dul suro ama lagu tuuro ama lagu daadiyo wax kasta oo uraya sida qashinka iyo cuntooyinka xumaaday kadibna lagu soo wareejiyo magaalada oo dhan maalintaasi dalka Shiinaha waxa ka jira dhaqan la yaab leh oo ah inay gabadha la aroosaya oydo muddo bila waana dhaqan cajab leh oo muhiimad gooniye iyaga ugu fadhiya 10 maalmood ka bacdi waxa gabadhaasi oohinta ku daraysaa iyada hooyadeed 10 maalmood ka bacdina waxa oohinta ku daraysaa gabadha ayeedeed ilaa dhamaadka bisha ay wada ooyaan haweenka jooga gurigaasi iyadoo ay u hambaleenayaan gabadha la guursanayo daawada halkani waa Mauritania gabdhuhu waxay jecel yihiin inay caata ahaadaan marka la aroosayo balse arinku sidaasi waa uu ka duwan yahay oo ragga ku nool Mauritania waxay jecel yihiin dumarka burburan waxana guursadaan oo kaliya dumarka burburan mana guursadaan wax dhuuban taasina waxa ay kalifteen dhammaan dumarku ay isbuurnayaan oo ay noqdaan kuwa burburan daawada waxaan filayaa arrinkani si weyn ula yaabteen balse waxaanay la yaab iyo mucjiso midna ku ahayn dadka iyo sidoo kale wadamada dhaqamadani ka jira waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal muqbaahiye caalamka badda Aston 4 TV